بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا والسلامية مالو بدون ذا كجبتان إن شاء الله تعالى وحين كلا قاعد ضمن كلن كعادا شقادة هيرك عالمي يعني كلا قاعد ضمن إن شاء الله تعالى شقادة إيقاب كلا قبنا يوم محيطة محن كفايدة يا بينوس لبرن ضمن إن شاء الله تعالى فسلم إذا وحين وجان ضمن نظامك يحبك عن وش غيسن كرنا ayaynu faahfaahin doonaa dowladda intaana bilaabin sharaxaadda waxaynu isogeysiinaan dhowr qodobood aad u fudud. number one in markaan dhegeysanayno inaanu ku dhegeysano meel buuqan lahayn si aan u fahanno waxyaaba aynu ka hadlayno. taa waa number one. number two in aan iska fogeyno waxyaabaha maxaa la yidhahdaa na mashquulin kara inaan iska fogeyno muddo 20 daqiiqo ay soconaysaa si aan ugu fahanno iyo inaanan gudbinin oo bilow ilaa dhammaad aan si toosa aan u dhegeysano insha allahu tacaala. waxay socon doontaa hadduu alla idmo 20 daqiiqo wax la mida ayay socon doontaa insha allahu tacaala. waxaynu gudageli doonaa bandhigeennii tababar ayaynu gudageli doonaa insha allah. fursad ganacsi weeye maanta fursadda tan lagu soo bandhigayo, maaha shaqaalanimo, waa fursad ganacsi. fursad ganacsi marka laga hadlayana way ka macno weyn tahay, wayna ka faa'iido badan tahay markii qofka loo soo bandhigo keliya shaqaale inuu noqdo. new business opportunity ayaynu isla arki doonaa. business opportunity-ga kan maxaa iiga banaan, maxay tahay habkee kaga mid noqon karaa, waan isla arkayna insha allah. waayahay insha allahu tacaala waxaynu arki doonaa statistics, bandhig xisaabeed la sameeyey isla arki doonaa. bandhig xisaabeedkan waxaa lagu sameeyey 100 qofood oo dhalinyaro ah, da'doodu ay ahayd 25 jiro. 100 qofood oo da'doodu 25 sano jir ahayeen, ka qalin jabiyey isku jaamacad, isku heer normalaas isku level ku jiray oo dabaqada dhexe ku wada jiro, dad maxaa la yidhahdaa aanan ahayn hanti badan leh, dad fuqarana aan ahayn oo dabaq normal wada ahaa baa lagu sameeyey. waxaa la dhahay dadka kan inuu fiirino noloshooda 40 sano kadib halkay gaari doontaa. 65 jir markay noqdeen macnaha waxa weeye 40 sano kadib ayay dadka dib loogu yimaado la fiiriyey. boqolkiiba 49 dadkii xilligaa baaritaanka lagu sameeyey waxay ahaayeen dad ah dependent on social security charity, dad ku tiirsan social security-ga dalka uu bixiyo iyo sadaqadaha iyo mucaawanooyinka waddanka uu bixiyo bay ku tiirsanayeen. oo micnaheedu waxaa weeye inay shaqeeyaan iska daaye, ama il dhaqaale inay soo gasho iska badaaye, ama dhaqaalo ama business ay leeyihin iska badaa, iyagii ayaa la mucaawanaya oo wax la siinaya bay noqonaysaa. halka 29 ay geeriyoodeen, 12% waxay ahaayeen prog, wax ay isla hayeen habeerateen ma jirto, oo maxaa la yidhahdaa noloshoodu waxay ahayd meel aad iyo aad iyo aad u adag. 5% still working, weli way sii shaqaynayeen, oo iyagu 65 sano jira ayay shaqo u sii taagnaayeen. halka 4% ay ahaayeen dad financially independent, dad dhaqaale ahaan madax bannaan, oo financially independent bay ahaayeenoo dad isku tiirsanoo waxna u baahnayn bay ahaayeen. 1% ayaa wuxuu ahaa dad hodana dhaqaale sameeya. su-aal baynu isweydiinaynaa marka, maxaa sababay 100 qofood isku level waxbarasho ahaa, isku level nololeed ahaa in la kala tago? weliba 95% ka mid ah ay ku jiraan dabaqooyin hoose, halka keliya ay ugu roon yihiin 5%, 4 halkan iyo 1 halkan. sababtu waxay tahay labadan qolo waxay lahaayeen systemkaas u suuro geliyey inuu u shaqeeyo, halka qolyaha kale aysan waxba aysan lahayn. oo qolyaha kale shaqaalayaal bay ahaayeen, dee qofka shaqaale adduunyada shaqadu weligeed ma soconayso, adiga ayaad awoodin inaad sii shaqayso, qola kaa fiican baa imaanayso dhalinyaro shaqayn karta, isku haleyn ma laha wey dhaqaale qof kale gacantiisa ku jira. adigu inaad noqoto qof wax sameeya, isku daya wax soo saar, businesskaaga kuu shaqeeyo buu halka noqonaya, iyo 1% kan oo noqda dad hodana. dunida marka la fiiriyo marka inta un bay noqonaysaa. gaar ahaan Soomaaliya haddaynu fiirino
dadkani 65 jirada dee waxay ku tirsan yihiin dee awlaadoodii wuxuudunba wax usoo diray dad dhaqaale sameeya way yar yihiin su-aasha isweydiinta mudanna waxaa weeye maxaa xal ah xalku waxaa weeye inaynu system dhisano systemkaas oo inoo suura gelinaya inaan dhaqaale sameyno halkii aynu ku jiri lahayn inaynu shaqaale sii ahaano waaya waxaynu isla arki doonaa arrinta tan 95% dadka dunida ah waxay ku jiraan labadan xaala midkood ima waa dad shaqeeya ima waa dad meheradlayaal ahoo meheradooda bay ka shaqaystaan labadan qole marka waqtigoodii bay lacag ku iibsadeen kan shaqaalaha ma baaqan karo inuu shaqada adigu ku qasban yahay suu lacag u sameeyo hadduusan shaqada aadin totally lacag ma jirayso si lamida ninka meheradlaha ah meheradiisa uu ku qasban yahay isagana inuu furo danbu u xiri karo hadduu xiro dee dhaqaale ma soo gelayo dhaqaalaha soo galo 5% buu dunida ka yahay iyagoo 9% bay dunida ka yihiin laakiin dhaqaalaha soo galo 5% buu dunida ka yahay aad buu u yaryahay bicneeda dhaqaalaha soo galo dhaqaalaha soo galo waxaa loo yaqaanaa magaca loo yaqaana waxaa weeye active income baa loo yaqaanaa dhaqaala ku soo galo markii aad action samayso ficil samayso oo haddii ficilka lagaa waayo dhaqaale ma jirayo meherada haddaa furi weyso ma jiro saasa lameed haddii aa shaqadii ka baaqatay totally ma jirayo dhaqaale dadka noocaana ma lahan financial and time freedom xorriyad dhaqaale ma lahan xorriyad waqtina ma lahan dhaqaalihii loo xadiday unbay helayaan oo in yar oo xadidan bay qaadanayaan waqti freedomna ma lahano oo waxay ku qasban yihiin timeka loo xadiday inay furnaadaan haddaba dadkan waxay u shaqeeyaan lacag si ay u helaan uma shaqeeyaan inay system abuuraan systemkaas u shaqeeya uma shaqeeyaane waxay u shaqeeyaan dhaqaale inay sameeyaan keliya tusaale farqi weyn baa u dhexeeya labada dhaqaale inuu qofku u shaqeeyo inuu lacag inuu helo inuu shaqeeyo inuu shaqeeyo inuu system inuu sameeyo farqi weyn baa u dhexeeya waxaynu isla arki doonaa marka tusaale haddaynu soo qaadano shirkadaha waaweyn dalka ka jira dadka iska leh tusaale ahaan kale telesom goolis hormuud aynu dhahan tusaale ahaan telesom ama hormuud ragga iska leh miyay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan miyay ku qasban yihiin no kuma qasbana dadkoo dhanaa u shaqeeya innaga ayaa ka mid dadka u shaqeeya tusaale ahaan hal maalin haddii internetka uu cilladee ku dhacdo waa wada wacinaa teleefon qabsanaa war maxaa internet ku dhacay annagii baaba lacagtay diyaar la ah noo soo daataagan sababtu maxay tahay they have a system bay leeyihiin oo ay samaysteen systemkaasoo ku dhisan baahideenna systemkaas ayaa u shaqaynaya weyn no matter what ma shaqeeyana maysan shaqayn sanad walba dhaqaaloodu wuu biirayaa sanad walba dadkii isticmaalayeen way badanayaan waxaynu sala arki doonaa marka dhanka kale 5% dadka dunida waa dad sameeya system oo leh waxayna sameeyaan dadka noocaana waxay sameeyaan dhaqaalaha dunida 9% bay sameeyaan 5% baa waxay heshaa dhaqaalaha dunida 9%. haddaba dadka noocaana waa dad noocee ah nidaamka kan waxaa ku noqon karnaa dadka noocaana qofka dadka talentiga leh misaal hadda tusaale usoo qaadana dadka kubadda ciyaaro kale talent bay leeyihiin dhaqaale fiican bay sameeyaan milyan bay qaataan laakiin dad yar baa meesha ka soo bixi kara in kubadaad ciyaarto dad qof caano aad dhanka ka noqoto janiska kaaga banan wuu yaryahay saas lamida patent dadka ikhtirac cusub iyagoo soo saare ikhtirac cusub bay sameeyeen qalab cusub bay soo saareen software cusub bay soo saareen iyagana wuu yaryahay dadka meesha ka soo bixi kara dad badanoo sameeyeen oo awsi adkaysanima tusaalaan yar dhalinyara waxaa jiray ee sameeyey programkan M-Pesa ee Kenya iyo wadamo badan ee Ghana wadamo badan laga isticmaalo Afrika Congo ay kamid tahay laga isticmaalo M-Pesa ninkii sameeyey wuu iska iibiyey dhaqaale dara awgeed buu iska iibiyey haddii uu sii hayn lahaa wuxuu sameyn lahaa millions buu sameyn lahaa bishii lacag gaaraysa oo gaaraan 1 billion iyo ka badan ayuu awoodin oo ka sameeya markuu iska iibiyey dee dad baa iibsaday maalgashaday shirkado waaweyn Vodafone iyo Safaricom baa isla maalgashaday pointka u dalnaya waxaa weeye patentigaas chance wuu kasoo baxaya qofka haddii uu sameeyo wax u gaara ee dadka baahidooda ku xiran tahay qodobka realize qofka inuu guryo uu leeyahay iyadana maalgashi badan bay nooga baahan tahay qofka business weyn inuu leeyahay isna maalgashi badan bay u baahan tahay franchise inuu magacaagii shaqeeyo oo magacaagii shirkado waaweyn ka iibisana iyadana maalgelin badan bay u baahan tahay businesskaaga waa inuu soo shaqeeyaa magacaaga inuu shaqeeyo sida salaano kale KFC shirkad kale inay qorato ee magacaaga kira ahaan kaaga kiraysato
waxaad u baahan tahay inaad adiga awalka hore dee KFC caana ka dhigtay bay noqonaysaa shirkad waxay doontaan way noqon kartaa shirkado badan baa jira oo franchise-kaas ku shaqaysta wayahay dadka noocaana waa dad timekooda lacag u dhalinayo wey oo timeka waa lacag waqtigu waa lacag haddaba waqtigu waa lacag baynu dhanhanaaye anagu waqtigeena lacag managu soo gashaa haddii aan hurdina ma lacag baana soo gasha may active income haddii ay noqoto noloshu xal waara uma aha sax xalka waa inuu bilow noqdaa oo bilowgaas uu kuu suurageliya inaad system samaysato laakiin xal waara uma noqon karo noloshu dadka noocaana passive income bay sameeyaan si joogtaa bay dhaqaale aad u badan bay si joogtaa u sameeyaan waxa uu suuragelaya iyagoo dhalinyaraha inay shaqooyin ka fariisaan sababtu maxay tahay waxay leeyihiin systemkaas waa hanti u dhala mar walbana iskordhin ay sii badasho sameeya taas u suuragelinaya inay xorriyad waqti iyo xorriyad dhaqaale inay helaan xorriyad waqti micnaheedu waxaa weeye waqtiga doonaan inay seexan karaan ama dalxiisi karaan ama ehelkooda la joogi karaan tusaale ahaan iyagoo dhaqaale sameynay ama cibaadaysan karaan iyagoo dhaqaale sameynay way waxaynu isla arki doonaa janiska kan iyo waxyaabaha nooga banaan baynu isla arkayna insha allah waynu aragnay nidaamka kan shaqaalenimada noocu yahay iyo pacificka faa'iidooyinka kale leeyihiin waxaynu u baahanaa pacific inuu sameyno dhaqaale mar walba sii biiraya oo system inaan sameyno ayaan u baahanaa haddaba xal manoo noqonayo inaana shaqaalayaal aynu noqon ama meheradayaal sidaa kale janiska halkan ka banaa iyadana wuu yaryahay haddaba maxaa xal ah ama janis iga banaan anagu dhaqaalaha intaa leegaana haysan maxaan samayn karaa baynu isla arkaynaa insha allahu tacaala waayahay profit sharing opportunity fursaddan waa fursad faa'iido wadaag profit sharing faa'iido wadaag bay dadku yihiin oo halka kan qofka shaqaale kama aha ee share buu ka yahay oo qofka markuu share u yahay iyo markuu shaqaale u yahay dee xaqiiqatan wuxuu lacag badan markuu share u yahay sax markuu share u yahay sanadaha koowaad dhaqaaluhu wuu yaryahay laakiin sanadba sanad ka dambeeya wuu sii biirayaa hore ayuu usii soconaya shirkadda maanta lagu soo casuumay magaceedu waxaa la yidhaha Tians waa shirkad international ah ka shaqaysa in ka badan 190 waddan xarumo weyn ku leh in ka badan 110 waddan Soomaaliya ka shaqayso ka howlgashay 2013 ilaa hadda ka shaqaysa Allahumma musta'aan dad badan oo Soomaaliyeedna ee ka faa'iideen horumar badan ay ka sameeyeen waddan badan oo Afrika ka shaqaysa sida Kenya, Uganda, Ethiopia dhammaan wadamada Afrika intooda badan ka howlgasha online ahaan iyo offline ahaan qofka uu uga shaqaysan karo waya haddaba waxaanu soo arkaynaa nidaamka ula shaqaysan lahayn su'aal buu kamariina weydiinaya su-aashaas waa wada top problems of life maxay tahay dhibaatooyinka ugu weyn maanta nolosha dadka dunida joogan ay ka cabanayaan qaybta dambe ayaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala dhibaatooyinka ugu weyn dadka dunida iyo waxyaabay ka cabanayaan iyo janiska inooga banaan ayaynu isla arki doonaa insha allahu tacaala